munaasabadan ay ku qalin jabinayeen arday gaarisa 180 waxay wax ka barteen dugsiga dhiirigelinta iyo tababarka ee Samagarad ee magaalada Burco iyagoo bartay saxaafadda fagaara ka hadalka iyo maareynta waqtiga waxa halkaasi goob joog ahaa mas'uuliyiinta dugsiga iyo qaybo ka mid ah hormuudka gobolka Togdheer goobta oo ahayd Golis Hotel waxa halkaasi ka hadlay maamulka maxadka iyo mas'uuliyiinta gobolka oo bagaadiyay ardaydaasi maanta ka qalin jabinaya dhowr dufcadood oo isugu jira public speaking isugu jira time management oo isugu jira journalism ardayda journalismku waxay qaadanayaan shahaadada la yiraahdo diblomada ardayda inta kale waxay qaadanayaan shahaadooyinka la yiraahdo certificate runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaya inay u soo samreen muddo badan qalin jabinta waxaan idin leeyahay hambalyo si kaliya laba mar hambalyeynaya inamaya hablaba waxa loo naadir hal waxba la idin bartay waxba barateen bartii ugu wanaagsaneed baa mareysaan wartacabka ha qasaarinina ee ku shaqeeya qolada saxaafadda ayaguna si qiimo leh dalku hadaan saxaafad lahayn waa dal mugdi ku jiro madow meel madow qof guri madow fadhiyo way wax weyn saxaafadda dalka horumarisa oo shaacisa oo waraagiisa sheegta adun baa ko tiraada laakiin waxaan u rajaynaynaa insha Allah ta'ala in wax barashadiina sii wadataan ina sii dadaashaan in sidii madaxdii horeba ay idin sheegtay taariikhda ay iska ilaalisaan waxaan idin kala soo qayb galnay madashan inaanu idin dhiirigelino goob kastoo dhalinyaradu isugu timaado iyo goob kastoo dadweynuhu isugu yimaado iyo goob kastoo horumarka dalka lagaga shaqaynayo inaanu ka qayb qaadanayo waa nagu waajib dastuuriya idinka saxaafad ahaan hal qodob unbaa idiin yaalla mar haddaa barateen saxaafaddu waa seef laba af la weyn dhinaca haddaa u adeegsataan xumaanta waxay noqonaysaa waxyeellay ku noqonaysaa qaranka iyo dalka haddii aad dhinaca wanaagsan u adeegsataanna oo waxa horumarka iyo wixii toosina kaga shaqaysaanna waxay noqonaysaa saxaafad la yaqaano oo waxtara maasanid shukran ilaahay baa i gaarsiiyey xalfadaydina maanta taagnaado waan soo socday waan samray macallin muqtaar waxaan leeyahay cadawga ha jabo dufcadan qalin jabisay ayaa ah dufcadii afraad ee ka qalin jabisay maxadkaas tan iyo markii la aasaasay waxaanu noqonayaa maxadkii ugu horeeyay ee bixiya koorasyada noocaas oo kale ah Sakariye Ilyas Jakarta wararka STN